RASMI Ousmane Dembélé oo ku guuleystay Abaalmarinta Ballon d'Or 2025 weeraryahanka reer France Ousmane Dembélé ayaa dhameystiray xilli ciyaareed cajiib ah ee 2024 ilaa 2025 kadib markii loo calaamay saaray xidigga adduunka ugu fiican ee ku guuleystay Ballon d'Or 2025 Dembele ayaa u saftay Paris Saint-Germain 59 kulan dhammaan tartamada isagoo ku lug yeeshay 37 gool iyo 14 caawin wuxuu ahaa laf dhabarka PSG ee guulaha taariikhiga ah isagoo ka caawiyay kooxda inay ku guuleystaan Ligue 1 Coupe de France UEFA Champions League Trophy des Champions iyo UEFA Super Cup wuxuu ku guuleystay ninkan ilaa 5 cup ayuu ku guuleystay tartanka UEFA Champions League ayuu si gaar ah ugu iftiimay isagoo dhaliyay 8 gool isla markaana bixiyay 6 caawin waxaa kamid ahaa saddexaalay uu ka dhaliyay kooxda German ee Stuttgart iyo goolal muhiim ah uu ka dhaliyay marxaladaha nus dhamaadka iyo budbaxa isagoo ku hogaamiyay PSG kuulo ka dhan ah Liverpool iyo Arsenal asoo Liverpool hal gool ka dhaliyay sidoo kale Arsenal hal gool ka dhaliyay ciyaaraha nusbaxa ayaa u horseeday in loo doorto xidigga xilli ciyaareedka ee Champions League Abaalmarinta Ballon d'Or waxaa xaqiijiyay sumcadda Dembele isagoo loo aqoonsaday mid kamid ah weeraryahanada uu sareeyay Yurub isla markaana uu door weyn ku yeelan doono PSG sanadaha soo socda ee mustaqbalka sidoo kale Ousmane Dembélé ayaa cajiib ciyaaro mucjiso ayuu soo bandhigay sida Champions League horaan aan ugu sheegay iyo sidoo kale Ligue 1 ninkan mucjiso ayuu noqday maadaama uu horaan u dheeli jiray PSG na xigtay kale horaan wuxuu dheeli jiray kooxdan la hayo Borussia Dortmund waxay ka iibiyeen Barcelona dadaal dambana waxaa soo iibsatay Paris Saint-Germain ninkan mucjiso ayuu la soo baxay hadda waxaa loo saadaalnay sanadaha soo socdo inuu asaga la sii hanan doono maadaama uu PSG laf dhabar muhiim u yahay oo xor u yahay oo si fiican ugu muuqanay garoomaha sidoo kale waxaan eegi doonaa muuqaalada soo socoto waxyaabaha uu ka yiri inuu ku guuleystay Ballon d'Or-kan iyo sidoo kale faa'iidada ay leedahay iyo mustaqbalka fog wuxuu ka yeelan doono inuu macnaha uu isku sii dadaali doono inay kale ayaan fiirin doona fadlan hadii inta soo gaarto muuqaalka like no saar subscribe hadii noo fadlan subscribe no saar waana ku maastay sidoo kale maanta waxa sharaf u ah abaalmarinta waxa guddoonsiyay ciyaaryahankii hore ee Barcelona iyo xulka Brazil Ronaldinho ciyaaryahankii asayna Ballon d'Or 2 jeer ku guuleystay ayaa maanta sharaf u tahay Dembele inuu guddoonsiyo Ronaldinho reer Brazil